neno horta waqtiga wuxuu ku saabsan yahay wakati uliopita timilifu huonyesha kitendo ambacho kilikuwa tayari kimekamilika. Waa ficil mar hore u soo dhamaystirmay kabla ya kitendo kingine ka hor intuu ficil kale dhicin wakati uliopita, katika wakati uliopita waqti la soo dhaafay. Alaashan ficilkan oo hadda waqtigan aan ka hadlayno ficilkii wuu dhacay wuu qabsoomay, laakiin waxaa jiro ficil kale oo asagana ku xigay oo qabsoomay jiro. soo marka kala horeysiinta laba ficil oo dhacday waqti la soo dhaafay isla markaasna marka xuseeno oo sheegayno waxaas iyo waxaas marka hore sameeytana ku xiji marka leenahay oo jumladii laba ficil ay ku jiraan ayaa waqtigan la isticmaalaa. waqtigan waxaa la isticmaalaa marka laba ficil hal jumlad ku sheegaysid isla markaasna kala horeysiinaysid. qasab ma hal jumlad kaliya in lagu sheego, laba jumlad ay noqon karaan. soo laakiin marka adiga ka warbixinayso leedahay waxaasan sameeyay haddana waxaasan sameeyay marka leedahay midka aad horeysiinaysid oo leedahay waxaasan marka hore sameeyay hadda kana ku xiji leedahay ayaa loo isticmaalaa waqtigan hadda ka hadlayno. Englishna past perfect tense waa laba ficil oo labadaba dhaceen waqti la soo dhaafay.